حمد عبد أحمد أو كم قاعد دير حمد كوين أو كترسان كوحدة حديقها جيسكا رنا هانتينا بريهاني أما مدوين كانوا جدا بينا فنكيد وآد وقصوا عن بحي جيجا صوماليدا لمركزنا آد لو تعلي هاي حمد كسر وجهرين عويسك فيه وين عاد بعد ما هتصنتي سجل مصطفى حسن نور برنامج عويسك فيه وين آد بنقول وهاي الحمد مركنا أنت سكجني مع إنه بل واحد وجهرين آد وربحنا قصيصة فنكاجا goorta dhalatay halka ku dhalatay goorta fanka ku soo biirtay bal warbixin yar oo kooban aad baad ma hadsantay sagalay walaalo anigu waxaan dhashay 1993 waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa halkaas aan ku barbaaray halkaas aan wax ku bartay halkaas baan jooga aad iyo aad fanka goormaad ku soo biirtay walaal waxaan ku soo biiray fanka 2009 laakiin fankaygu wuxuu buu soo shaac baxay ama shaashadaha ka soo muuqday 2012 ugu horreeyay marka intii aanad fanka ku soo biirin ma jirtay hibooyin kale ama hidayaal familigiinu lahaayeen maxaase kugu dhaliyay baad odhan kartaa inaad fanka ka mid noqoto wallahi hibayaal way jirtaa oo dee habaryarahay aduu family laakiin hidaraac ama qof abwaano soo shaac baxay ama dad aan odhan karo dee hibadooda faneed ama suugaaneed way soo muuqatay ma jiro laakiin wuxuu baan odhan karaa aniga ayaa iska jeclaaday fanka aadna u jeclaa anigu xaqayga ka imi waxaag bal waraysiga dib ayaynu ka dhigan doonaa heesaha way tiro badan yihiin inkastoo wada calaacal iyo jacayl iyo wax fara badan ay u badan yihiin qalbi daadka caashaqu dacalada ka soo galay ayaan waayay dabar iyo darbi lagu cesho adag heeso fara badan heesti qumane heeso fara badan ayaan caweyska ugu talagalay dadweynaha balse heesta kuwada jeclaan lahayd inaynu ku furanno maxaa aad jeclaan lahayd xamdaay walaal waxaan jeclaan lahaa waxaan noo soo qabanayaa heesahayga hees kamida oo ereyada leeyihiin abwaan sidiiq burmad laxankana waxaa saaray maxamed miir xaaji heesta waxaa la yidhahdaa heesta qumane weeyaan qumane waa heesta aad iyo aad dumarku aad run ahaantii aad moodo inay isku wada dhayaan qabso oo naftayda ilow qaladku soo gaadhay aad iyo aad xuma qoys ninkaad wada dhisteen haddana qaatan xuma kaada qalbiga siisayo qiimo laga waayo quruxdaada kaad hootidho weli qadhaabaystaa oqolaali meel kale ka jecel qalanja loo hooyey ya salaam waa hagaag heestaasi qumane oo runtii dumarku aad iyo aad ay isugu dhayaan xamdaay oo raggana in badan oo kamida ay ka cadhaysiisayo u qolaali meel kale sagalay waa runa waxa jirta walaalo horta rag uma wada xuma laakiin heestaas wuxuu bay tusinaysaa nin intuu gabadhiisii waxaan ku yiri isagoo gabadh qaba meelaha waxaan ku yiri daluuqyada ku badan taasay ka hadlaysaa laakiin daraga waxa leenahay caroonina heestu inta xunun bay saameynaysaa qaybta dambana qofkii bay la hadlaysayo ay leedahay niyada u dhisay leedahay qabso oo naftayda ilo qalad ku soo gaaray qoomamadu lugtay ka xidhaa waana ku qabataa aad iyo aad wax ka baro qardoofaha ninkii lagu qasaaroobay dadii dhacdiya waayahana meel ku qora gaaray waxay heesihii aadka loogu jeclaa sanadadani ugu dambeeyay markaynu intaasi kaga nimaadno dadku waxay isweydiinayaan xamda kuwiin waa qof shakhsiyad nooceeya kulay anagu waanu garanaynaa shakhsiyadaada inaad runtii had iyo habeen qof qosol badan aad tahay dadku shakhsiyad nooceeya ay kugu tilmaamaan adiga laftirkaagu se qof nooceeyaad iskula muuqataa mararka qaarkood wallahi walaalo dadku badanaa waxay igu tilmaamaan waxay igu dhaadaan qof wanaagsan baad tahay qof dhowrsan baad tahay qof edeb badan baad tahay dee wuxuu baan isleeyahay marka ammaanta ka buuxso weelo ammaanun baan u qaataa sagalay ta kale dee anu wuxuu baan soo haystaa qof bulshadayda iskaga dhex jirto oo iska caadiya waxa tahay qof caadiyo man isdhaahdaa waa hagaag markii aad soo shacbaxday markii hore intii aanad soo shacbixin iyo imika markaad soo shacbaxday dadku aad aragtay inay ku wada garanayaan oo mararka qaarkood aad suuqa dee mari kari weydaba farqi nooceeya u dhaxeeya adigu sakeeba doorbidi lahayd markii hore intii aanad fanka soo gelin iyo imika keebaad isdhaahda wallahi darajadii loo baahnaa waad gaartay
والله سكلي هرت ولاalo لسma barbar dhigi karo qof aan iyo qof aan caan ahayn horta aad baan u farxaa marka meel kasto oo istaago meel kasto oo marayo hargeysa ma ahay meel kasto oo ka Soomaali joogta xamda kuwin ee la istaago wallahi waan farxaayo waxaan tiraahdaa aad iyo aad marmar aad waxaan ku sida dadka caadiga ah ee hablo waxaad iska arkaysaa suuqa iska marayo iska de aad uma mari kartid marbaad tiraahdaa talow hadaan lagu garanayn imka meelahaas iska mari laydo aad iyo aad marka caanimaduna way wanaagsantahay labada siyoodba waa laba siyood oo loo baahan yahay dadka caanka ah mar walba way ka dhowrsan yihiin dadka kale meelo dadka kale ay maxaan idhaahdaa gali karaan baan gali karin oo caanimadu ay ku xidhaysaa waa hagaag in xamdi marka laga yimaado dhinacaasi caanimada markaynu ka nimaadno maxaad isleedahay adigu fanka waad ku soo kordhisay ama fanaaniinta kale ee gabdhaha kula mid ah heeso waad kaga duwan tahay sagale aad baad mahadsantahay walaalo kulli waxaan furan karaa in kasto jiraan habla abwaaniina abwaanad meeshi talax tagtay laakiin waan isku dayaa heesahan waxaan ka saaraa erayada waan isku yara dayaayo heesaan sameeyay marka taas ma isleeyahay xagga hablaha ee fankeynka joogo waad kaga duwan tahay waa hagaag heeso aad samaysay ama jiraan oo aad qaaday way jirtaa walaal heesan aan leeyahay erayada oo laxankana saaray maxamed miir baa jirta oo la yiraahdo tawaawac waa hagaag heestaas bal xogaa ma noogu luqeyn kartaa aad iyo aad inta la montashaday inta hayoon qarsaday inta nafta tiiriyoon ku riday tubiyaha runta inteen ka tolaayay cadow inteen ka tidcaayay nacab inteen islahaa turxaantan ayaanay maradaadu tabin ya salaam ilaahay codkaa ku barakeeyaan ku leenahay xamda cabdikiinaan xamda kuweyn xamda heestaasi maxaad ku samaysay qiso nooceeya ama jawi nooceeya ayaad ka samaysay oo aad ku jirtay markaad heestaasi sameynaysay sagalay walaalo heestaasi waqtiga aan sameeyay xaalad aniga khusaysa bay ahayd dareen aniga iiga imi oo xaalada waqtiga ay haystay ayay ahayd dareenku aniga iiga imi marka wuxuu ma oran karaa waan cara qoray ama ciil qoray